magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacay shir ay iskugu yimaadeen ismada gobolka Cayn iyo ganacsatada iyo sidoo kale wakiilo ka socda hay'adda Haro waxaana shirkan ku saabsanaa mahadcelin badan oo loo jeedinayay mas'uuliyiinta hay'adda Haro oo fadhigeedu yahay wadankaasi Mareykanka iyo waliba qaybtii lixaad ee ka qaadatay xaaladda abaareed ee ka dhacday gobolka Cayn iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya. hay'adda Haro ayaa inta badan deeqa kala duwan waxa ay gaarsiinaysay deegaano badan oo hoos yimaada magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. ugu horreyn waxaa halkaasi si wadajir ah uga hadlay Cabdullaahi Jaamac Haruun iyo sidoo kale Mukhtaar Awil Internet oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Haro iyo waliba qaar ka mid ah uqaasha gobolka Cayn. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisaaq Garaasoofa Duraan waxaana uu si weyn u amaanay karinta ay ka qaadatay hay'adda Haro xaaladda abaareed ka dhacday gobolka Cayn. 517 qoys oo quudin loo sameeyay xaaladdanka ilaa Farjano ilaa ay hegla ka dhacday ilaa Buuhoodle markii labaad waxaa naga soo gaaray lacag dhan $5,000 oo iyadana hospitaalkii Shumbiyoodka dadkii ku dhacay lagu wareejiyay guddiga sawaaraha. markii saddexaad waxaa naga soo gaaray lacag 5,000 ah oo labada magaalo ee magaalada Leehelo Dhoobo Guduud iyo magaalada xanuunka iyo abaarta saddex xubno taabteen xabad la gaarsiiyay. markii afraad waxaa naga soo gaaray lacag 6,000 oo la gaarsiiyay magaalada Goljanno oo iyadana qaxoonti badan iyo barakac badan ka jiray oo iyadana 325 qoys oo hoy loo sameeyay iyo 8 qoys oo loo sameeyay quudin. ilaah waa mahad iska leh. mar labaad waxaan mahadnaqaynaa hay'adda Haro iyo howlwadeenadeeda culimada iyo agaasimayaasha iyo maamulka sare. maanta waxa weeyaan waa mahadcelin hay'adan inay maartay wixii ay qabatay waxa kale oo jira hadda markii laga baxay abaartii cudurkiina wali wuu jiraa aan maartay gaajina wali way jirtaa oo dadkii xooluhu ka dhamaadeen ayaa maartay jooga waana xilli jira oo gaajo badan oo aan xilligii dhamaanin wali maartay baahidu marka cid kasta oo ka qayb qaadan jirtay gurmadkii abaaraha iyo cudurrada waxaanu u sheegaynaa inaan dhamaanin ay jirto xilli gaajo marka inay ka qayb qaataan. hay'addan Haro waxqabadkeedii hadda la inoo tirinayay wakiiladu inoo sheegeen waxqabad aad u ballaaran waxaan filayaa hay'adaha inoo yimaada intii dhib uu hadda dhacay inoo soo gurmaday hay'ad waxqabadka ballaaran sameysay kuma jirto marka waxqabad ballaaran oo gaaray dhul fara badan oo gobolka Cayn camimay dhammaystiray intiisa badan wada gaaray haday tahay raashin oo baahi loo qabay haday tahay dadka xanuunsanaya oo caawin u baahnaa iyo haddii ay tahay bicihii roobka oo xoolihii marada daciifeen oo ay tamar daran yihiin dhibicda roobku inay wax yeesho oo inta kale israaciso baqdin laga qabo daraadeed in helo baca roob oo xoolihii wixii soo doogay lagu doojiyo aad iyo aad bay waxaas oo muhiim u yihiin. marka waxaan dhinacyadii loo baahnaa cudurka lahaa iyo baahida abaarta iyo gaajada lahaa iyo xoolaha iyo ilaalinteeda lahaa intiiba hay'adda Haro way ka qayb qaadatay. iyo roob iyo nicmo Allah ay siiyay Allah samahadsan ma hadda alla kadib xafladda halkan aan isugu nimid mahadcelinta aan mahadcelinayno hay'adda Haro oo leh 5 jeer ayay intii dhibaatooyin ku jireen deeq soo gaarsiiyeen dadkan dhibaataysan waxaan leenahay aad baad mahadsantahay Allah idin barakeeyo abaalka maanta aan idin siinayna waxa weeye Ilaahay inaan idin barino Allah idin barakeeyo hay'adiina Allah idin barakeeyo xoogiina Allah idin barakeeyo xoolihiina Allah idin barakeeyo Ilaahay saasaan idin weydiinaynaa waxaysto waxaan kuugu baaqaynaa ama magaalo joog ama miyi joog ama qurba joogo qaraabadaada miyiga joogtay way baahan yihiin xoolihi ay haysteen waa ka dhamaadeen caaw cidna ku halayn baan leenahay hay'adaha iyo dadka maaragtay deeqda bixiya haraka midtaana waxaanu leenahay dadka xoolaha dhaqan jiray ee xoolo ku noosha ahaa ilaa iyo baahidoodu xoolahaasi ay u irmaanaadaan waxa yara u haray ama wax isbedelaan wixii aad u qaban kartaan ha ka caajisina. hay'adda Haro oo fadhigeedu yahay wadanka Mareykanka ayaa si rasmi ah waxa ay qayb lixaad leh uga qaadatay dadka abaaruhu ay saameeyeen oo ku nool deegaano badan oo hoostaga magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Xuseen Xasan Cadde raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Buuhoodle.